xildhibaan cali maxamed xasan cali mareexaan oo kamid ah xubnaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa deeq agabka ciyaaraha ah ku wareejiyay maamulka degmada Qoryaal oo ka tirsan gobolka Togdheer kana mid ah goobaha udub dhexaadka u ah meelihii uu ka soo baxay xildhibaanku xildhibaan cali maxamed xasan cali mareexaan oo inta badan ka shaqeeya door muuqdana ka qaata barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada iyo guud ahaanba dalka ayaa waxqabadkiisu si mug leh uga dhex muuqday guud ahaanba dalka gaar ahaan deegaamadii laga soo doortay xildhibaan cali maxamed xasan mareexaan oo ka hadlayay wareejinta deeqdan agabka ciyaareed ayaa ku tilmaamay mid lagu dhiirigelinayo dhalinyarada iyo sportiga isla markaana qayb ka ah barnaamijyada uu ku caawinayo arrimaha bulshada marlabaadka waxaan halkan aan ku gudboonsiinaynaa kursiga sare ee Qoryaal ee boardingka qalab sport oo aan ugu talagalnay in team ciyaaraha ee iskuulka uu isticmaalo doomiyada waxbarashada degmada iyo maamulihii iskuulka waana la joogaan oo ku soo dhaweynayna waana ku wareejinaynaa waxaana intii iskuulkan oo boarding ah oo intii iskuulaadu weynaa iskuulaadu muhiimana ah oo cusub loo baahan yahay in dadka dugsiyada dhexe ka soo baxaya deegaanka roodhibina ay ka faa'iidaystaan waxaa laga sheegay intii uu furnaa in si fiican wax looga bartay gudoomiyaha gobolka Togdheer mas'uuliyiinta Qoryaal iyo guud ahaanba bahda sportiska ayaa xildhibaanka uga mahad celiyay kuna tilmaamay mid ka sheegan xildhibaanada baarlamaanka waxna uu qabtay bay dhaheen dadkii soo doortay dhawaanayay heed markii xildhibaan cali maxamed xasan cali mareexaan oo degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle uu ku wareejiyay agab ciyaareed iyo sportis oo lagu dhiirigelinayo da'yarta deegaamadaasi Absaaq Farax Abdullaahi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Burco.